wuxuu ku yiri waxaan balan ku qaadayaa hilibkiina inay cuni doonaan dadka. balantiina wuu ka soo baxay oo hilibka hooyadiisa iyo aabihiisa waxaa cuneen dadka. Henry wuxuu deganaa Hong Kong, wuxuu dhashay 1983. Henry wuxuu ahaa qofka kaliya ay dhaleen waalidkiisa aadna way u jeclaayeen, mana jirin walaal kale oo la dhashay Henry. sidaas darteed Henry jaceylka ay siiyeen wuxuu ahaa mid aad u weyn waalidkiisa. Henry wuxuu ku fashilmay waxbarashada, waxay isku dayeen inay wax baraan, waliba ay geeyaan meelaha ugu wanaagsan ee wax lagu barto, laakiin waa sidiisa Henry wax isbedel ah kama muuqdo. iyagii ayaa dib isugu laabtay kuna yiraahdeen maxaa qaldan, wax walba ayaan kuu sameynay, laakiin weli waxbarashada kuma wanaagsaneyd Henry. markaan waxay is yiraahdeen waa in aan xal kala raadinaa, laga yaabaa in uu leeyahay hibo gaar ah. meel piano lagu barto ayay geeyeen, waxay isdheheen laga yaabaa inuu ku guuleysto, laakiin wuu ku fashilmay. Henry wuxuu ahaa yaraantiisa ilaa uu ka weynaado qof aan lahayn asxaab, xitaa kuwii ay wada dhigan jireen iskuulka markay u soo dhawaadaan wuu iska fogeyn jiray, xitaa fursad uma siin jirin kuwa kale inay saaxiib la noqdaan. dabeecadiisa wax lala yaabo ayay ahayd. 2003 ayay go'aan ku gaareen waalidkiisa inay ka safriyaan magaalada Hong Kong uuna aado gobol kale oo aad u fog, kaasoo leh waxbarasho aad u wanaagsan. wuxuu galay iskuul cusub Henry. gobol kale markuu aaday waxay bilaabeen inay u diraan lacagta uu rabo, aadna way u ilaalin jireen maadaama kaligiisa ay ka dhaleen. Henry lacagta kaliya ayuu ka qaadan jiray waalidkiisa, mana uusan gelin iskuul cusub, mana ahayn qof wax baranayo. been ayuu u sheegi jiray waalidkiisa. muddo kadib ayuu dib ugu soo laabtay familkiisa isagoo been u sheegay, wuxuuna ku yiri waxbarashadii iskuulka way ii soo dhamaatay. aad ayay ugu farxeen. waqti yar kadibna way ogaadeen beentii uu u sheegay, waxayna ku yiraahdeen ma aadan sameyn wax wanaagsan. laakiin Henry ma ahan qof raba inuu wax barto. waxay ku yiraahdeen ugu dambeyn cun oo cab guriga iska joog, khalaas wiilka kaliya aan haysan ayaa tahay. maxaan sameynaa ayay ku yiraahdeen halahan kadib. hadda kadib waxaa doonta ayaan ku siin doonaa, iska joog guriga. wuxuu bilaabay waqtigiisa ugu badan inuu ku qaato PlayStation-ka. kadib ayay dhalinyaro isbarteen, wuxuuna yeeshay asxaab. wuxuu bilaabay asxaabtiisa inuu ku dhaho Henry xaalad nafsi ah ayaan ku jira oo xaalkayga ma wanaagsano. Henry sidoo kale weligiisa ma uusan jeclaan gabar, wuxuu ahaa qof kaligiisa, laakiin asxaabtiisa waxay xiriir la lahaayeen gabdho. Henry ayaa isku dayay inuu samaysto xiriir jacayl, kadib wuxuu helay gabar aad u wanaagsan, wuxuuna ka baxay noloshii kalinimada, wuxuuna bilaabay inuu soo dhex galo bulshada. xiriirkaasi sida uu socday ayay ku tiri maalin maalmaha ka mid tahay Henry saaxiibadiisa, waxaan kuu leeyahay uur. waxay sugaysay inuu ku farxo, laakiin isagoo kor u qeylinayo ayuu ku yiri warka aad sheegayso wax igu socdo ma ahan, waa in aad soo tuurtaa cunugaani ku jira calooshaada. waxay ku tiri awlaadeena waxay ahayd inaad ku faraxdo oo murugadan aysan kaa muuqan. mar kale ayuu hadalkii ugu celiyey, wuxuuna ku yiri waa in aad iska soo tuurtaa cunugaani calooshaada ku jira. laakiin waxay ugu jawaabtay khalaas aniga ayaa korsanayo, adigana iska dhaaf. kadib ayuu ku yiri ma ahan wiilkayga ka bax korso oo haddii aad doonto. muddo kadib way dhashay, waxayna bilowday inay koriso oo ay tarbiyeyso. Henry waa sidiisa PlayStation ayuu iska ciyaaraa, wuxuu u baahdana wuxuu ka qaataa familkiisa. maalin maalmaha ka mid ah ayuu isbedelay Henry, wuxuu go'aansaday inuu shaqaysto. shaqadii ayuu helay, isla markiiba waa laga buriyey shaqada, waayo shaqada waqtiga loogu talgalay ma uusan imaan jirin. shaqo kale ayuu raadiyaa, isla sidii waa laga soo buriyaa. kuwa qaarna isaga ayaa isaga soo tago. mar uu sanadka ahaa 2007 isagoo fadhiya meel kafee ah ayuu wuxuu bartay Angus. Henry iyo Angus ayaa halkaasi saaxiib ku noqday. Henry waqti badan kadib wuxuu helay saaxiib. Angusna wuxuu soo maray xaalad adag, wuxuu guursaday haweeney wayna ka geeriyootay. muddo kadib isagoo ku jira xaaladaas ayay isbarteen haweeney ajnabi ah. guurka kadib ayay ku tiri waxaan guurkaaga u rabay inaan helo dhalashada dalkeena, wuuna isaga tegay midii labaad. wuxuuna is yiri Angus haddii aad ka tagto Chinaha laga yaaba xaalkaaga inuu ka hagaago sidaani. wuxuuna aaday dhankaas iyo New Zealand, wuxuuna bartay gabar, waana midii saddexaad. iyadana wuxuu islahaa kuwii hore ayay ka wanaagsanaanaysaa, laakiin jacayl been ah ayay u jishay, wayna isguursadeen. markii ay ka dhamaysay lacagta ayay isaga tagtay. Angus xaaladaasi markuu uu galay wuxuu dib ugu soo laabtay Hong Kong. Angus ayaana isku dayay inuu isdilo 3 jeer, si walba uu isku dayay inuu naftiisa isdhaafiyo. waa laba saaxiib ah, Angus iyo Henry, kuwaas oo nolosha ku fashilmay. Henry ayaa ugu dambeyn isku dayay mashruuc inuu samaysto isagoo soo qaatay deymo badan, wuxuuna isku dayay ilaa 4 jeer mashruuciisa inuu ku guuleysto, laakiin wuu ku fashilmay ugu dambeyn. 2012 sanadka markuu ahaa Henry waxaa lagu yeeshay deymo badan. 2013 Henry wuxuu go'aansaday inuu xal raadiyo maadaama deymihii ay batay. wuxuuna u yimid familkiisa, wuxuuna ku yiri xal ayaan helay oo deynta aan ku xalin karo. waxay ku yiraahdeen noo sheeg xalka. wuxuu ku yiri waa inaan iibinaa guriga, kadibna aan qaataa lacagta aan xaq u lahaa, mumkin xaqiina aad qaadataan. walba sidaas ayuu ku xalismaayeen ayuu ku yiraahday waalidkiisa. aabihii iyo hooyadiisa waxay ku yiraahdeen ma waalatay, gurigan cidna ma iibin doonto. wuxuu bilaabay kor inuu u qeyliyo Henry, wuxuu ku yiri waxaan u baahanay nuska aan ku lahaa gurigan, waa in aan helaa lacagteeda, guriganna waa inaad iibisaan. laakiin aabaha iyo hooyadiisa warka uu sheegay kuma socon. warkii waa uu batay ilaa xalka uu noqday inuu u hanjabo
hanjabo waxaa balan ah in aan idiin jarjaro hilibkiina aan siiyo dadka maalintii kadib xiriirka familkiisa waa uu gooyey meeshana waa uu isaga soo tegey wuxuuna aaday dhanka Angus waxay ijaarteen guri halkaasi ayay deganaayeen kadib Henry ayaa bilaabay inuu u sheego wixii isaga iyo familkiisa dhexmaray Angus wuxuuna ku yiri waxaan rabaa inaan ka aarsado hooyaday iyo aabahayga adigana waa inaad garab igu siisaa Angus oo ahaa nin isagaba nolosha ka quustay 3 jeerna jecelaystay nafta inuu isdhaafiyo ayaa ku yiri war saaxiib diyaar ayaan u ahay Angus ayaa ku yiri Henry sidee ayaan qorshaha u bilownaa waa inaad keentaa qorshe Henry ayaa ku yiri suuq lacag ayuu qaatay wuxuuna aaday suuqa wuxuuna soo iibsaday 2 fridge wuxuuna keenay kii kushiinka ee wax lagu karinayay Angus ayaa ka yaabay saaxiibkiisa waxa uu keenay guriga ilaa ninkaani wuxuu rabaa inuu wax jarjaro mar kale ayuu aaday suuqa wuxuuna soo iibsaday mindiyo markaan Henry wax walba way u dhameystiran yihiin maalmaha ayuu wacay hooyadiisa iyo aabihiisa wuxuuna ku yiri aabe iyo hooyo aan ka xumahay wixii aan sameeyay waad i soo koriseen wax walba aan u baahda ayaad isiin jirteen aabe iyo hooyo iga raali noqda aadna waa idinkugu xiisay wuxuuna ku yiri hooyo iyo aabe waan xanuunsanahay mana dhaqaaqi karo waa inaad hadda ii timaadaan hooyadiisi way ooysay aabihiisana sidoo kale waxay ku yiraahdeen halka aad joogto waa inaad noo sheegtaa isla waqtigan waan ku imaanaynaa markii ay albaabka soo gargaraaceen isla markiiba oo ay gudaha u soo galeen wuxuu la dhacay mindi ilaa ay ka geeriyoodaan iyagana ma ahayn dad wax iska celin kara waayo waxay jireen 60 sano Angus meesha ayuu joogay oo dilka ayuu kala qayb qaatay labadii waalid markii ay geeriyoodeen Angus iyo Henry waxay bilaabeen si naxariis daro ah inay u jarjaraan jirkooda kadibna ay geliyaan fridge ama talaajada markii labaad ayuu soo aaday suuqa Henry wuxuuna soo gatay saxanaha take away-ga lagu cunay cuntada ninkaani waa manaxe wuxuu rabaa inuu ka dhabeeyo hadalkiisa waxay bilaabeen markii ay soo gateen saxanadii inay kariyaan hooyadiisa iyo aabihiisa waxa uu bilaabay hilibka aabihiisa iyo hooyadiisa inuu kariyo waa kubii aadku u jeclaa markii ay kariyeen waxay soo iibsadeen rooti kadib waxay bilaabeen inay u qeybiyaan hilibka hooyadiisa iyo aabihiisa dadka isagoo iska dhigayo qof sameynayo wax khayr ah masaakiinta maadaama gaajo ay hayso waxay bilaabeen inay cunaan hilibka hooyadiisa iyo aabihiisa waxay cunayaan bashar inuu yahay kama warhayaan maalintii labaad ayuu sidaasi sameynayay oo hilibka hooyadiisa iyo aabihiisa ayuu siinayay masaakiinta Angus ayaa damiirkiisa dib u soo laabtay wuxuuna bilaabay inuu isweydiiyo waxa uu sameeyay aadna uu ugu xumaaday saaxiibkiisa oo aan ka warhayn ayuu booliiska la hadlay wuxuuna ku yiri waxaan galnay dambigaasi kadib booliiskii ayaa si degdeg ah ku yimid guriga gacanta ayay ku dhigeen Henry booliiska markay ku bilaabeen guriga baaritaan fridge-ka waxay ka heleen madaxa hooyadiisa iyo aabihiisa uu dilay iyo waxay ka heleen lafaha aan la karin karin sida gacmaha iyo lugaha Henry wuxuu ahaa qof qalbi adag oo aan lahayn naxariis markii baaritaanka maxkamadda uu bilowday Henry waa uu isbedelay wuxuuna bilaabay dambigii isaga uu geystay inuu Angus dusha uu ka saaro wuxuuna ku yiri qaadigii maxkamadda dilka hooyadeyna markaan aan sameynaynin lugta ayaa wax iga gaaray waxaan aaday farmashiyaha markaan dib u soo laabtay maalintii labaad waxaan arkay Angus oo jarjaray aabahay iyo hooyaday qaadiga maxkamaddana ma rumaysan hadalkii Henry maxkamadda ayaa mar kale ku tiri sidee ayaad u aragtaa Angus hadalka uu yiri Henry Angus ayaa yiri aniga 3 bari ayaan ka maqnaa guriga mana kula jirin dambiga dib markaan u soo laabtay waxaan arkay Henry oo dilay familkiisa kadibna jarjaray iguna yiri hadii aad sheegto adigana waxaan ku dili doonaa sidooda oo kale ugu dambeyn maxkamadda ayaa waxay ku xukuntay Henry xabsi daa'im halka lagu xukumay Angus hal sano muuqaalkeen halkaas ayuu ku egyahay channelka hadii aad ku cusub tahay subscribe noo saar una sii share garay asxaabtaada muuqaalkan